Nin baa hadda ka hor go'aansaday inuu wax badan ka ogaado dhagarta dumarka. Si uu arrintaas uga dhabeeyana, wuxuu galay safar dheer. In muddo ah markuu socday, ayuu arkay islaan waayeel ah oo ceel dul taagan. Inta ceelkii biyo ka cabay, ayuu islaantii weydiiyey, "Eeddo horta sir naageed iyo dhagar dumar, waan maqlaye bal wax ma iiga taaban kartaa?" Islaantii uma jawaabin, balse waxay bilowday wadaantii ceelka ee biyaha ku jireen inay isku bilbisho, kadibna ay qayliso. Ninkii oo aad ula yaabanaa falka ay samaysay islaanta, ayaa hal mar ka war helay 4 nin oo dul taagan, kuwaasoo islaanta meesha joogtay dhashay. Markii wiilashii islaanta dhashay goobta yimaadeen, ayay ku tiri, "Ceelkan ayaan ku dhacay, balse alxamdulillaah, ninkan ayaa iga soo badbaadiyey." Nimankii ayaa bilaabay inay ninkii uga mahadceliyaan tallaabada uu hooyadood ku badbaadiyey. Intaa kadib islaantii ayaa ninkii inta u soo dhowaatay ku tiri, "Haddaan ku dhihi lahaa ninkan baa ceelka igu tuuri rabay, naftaada ayaa halkan ku weyn lahayd. Dhagarta dumarkana waa sidan oo kale, erey afkeeda ka soo baxa bay kugu dili kartaa, erey kalena way kugu badbaadin kartaa. Haatanna intan cashar ha kuugu filnaato, ee orodoo reerkaaga u laabo." Sheekada labaad. Nin boqor ayaa hadda ka hor waxay dadku ku xaman jireen inay xaaskiisa u taliso. Ninkii boqorka ahaa ayaa maqlay arrinta laga sheegayo ee ay dadku hadal hayaan. Maalintii dambe ayuu isugu yeeray raggii magaalada joogay, wuxuuna ku yidhi, "Laba saf kala gala. Safka koowaad intii ay xaaskooda u talisa ha galaan, inta iyaga xaasaskooda u taliyana safka labaad ha galaan." Raggii oo dhammi waxay galeen safkii koowaad, marka laga reebo hal nin oo geesinimo iska baaray oo galay safka labaad ee ah ragga xaasaskooda u taliya. Boqorkii ayaa wuxuu siiyey min hal ukun raggii safka koowaad ku jiray. Ninkii keligii safka labaad taagnaana wuxuu ugu deeqay inuu kala doorto 3 faras midkood oo qurux badan. 3da faras waxay ahaayeen mid cad, mid madow iyo mid kafee ah. Ninkii wuxuu doortay faraskii kafeega ahaa, waana la siiyey, wuxuuna la aaday gurigiisa. Markii uu gurigiisii tegay ayaa xaaskiisii ku tiri, "Maanta faras ayaad wadataa, ee halkeed ka keentay?" Wuxuu ugu jawaabay, "Anigu waxaan ahay ninka reerkiisa u taliya, sidaa darteed waxaan ku guulaystay inaan soo qaato faraskan. Waxaana boqorku i kala dooransiiyey 3 faras, mid cad, mid madow iyo tan baroonka ah ee aan hadda wato." Xaaskiisii ayaa ku tiri, "Faraska wuu qurux badan yahay, laakiin waxaad aad ugu soo bixi lahayd haddii aad soo qaadan lahayd faraska cad." Ninkii ayaa yidhi, "Dhib ma lahan, hadda ayaan soo beddelanayaa." Wuxuu ku soo laabtay boqorkii, wuxuuna u sheegay inuu rabo in faraska cad loogu beddelo midka kafeega ah ee uu markii hore qaatay. Boqorkii ayaa weydiiyey sababta isbeddelka keentay, wuxuuna ugu jawaabay inay xaaskiisa ku tiri, "Midka cad ayaad ku fiican tahay." Boqorkii wuxuu ninkii ka qaaday faraskii kafeega ahaa, wuxuuna siiyey xabad ukun ah. Fiiro gaar ah. Haddii aad xaaskaaga jeceshahay oo aad talooyinkeeda qaadato, taasi micnaheeda ma ahan in ay kuu taliso. Saaxiibayaal, inala wadaag labada sheeko midda aad sida qaaska adigu uga heshay. Muuqaalkanna aragtidaada ku aadan hoos inoogu reeb, sidoo kale inoo sheer gareeya si ay saaxiibada kale uga bogtaan.